halkan waxaan isku nimid kulan soo qaabqaabsay wasaaradda hawlaha guud oo lagu tababarayo degmooyinka uu ka shaqeeyo mashruuca GBLG injineerada ka kala socda kaasoo lagu tababarayo shuruucda lagu maamulo magaalooyinka oo kulan socon doona 3 cisho. kulankan wuxuu ku saabsan yahay ama uu inaga caawinayaa sidii aynu u gaari lahayn horumar waara xag dhaqaale xag deegaan iyo xag bulshada. wuxuu kaloo ka caawinayaa howlwadeenadan iyo injineerada degmooyinka ka kala yimid inay marka ay ku noqdaan degmooyinkoodii ay fulin karayaan howlahoodii nidaaminta magaalooyinka iyo dhulka. wuxuu ka hadlayaa laga soo bilaabo xagga sare oo ah qorsheynta guud ee qaranku ka leeyahay xagga dhulka oo ah inaynu dhulkeenni u samayno aynu kala xadayno qaybtii aynu ka dhigi lahayn daaqsin, qaybtii aynu ka dhigi lahayn beeraha, qaybtii aynu ka dhigi lahayn dalxiis. halkaana aynu hadhow ka soo dheegano ama gobol waliba uu samaysmo wax loo yaqaano regional development plan ama regional spatial plan inuu samaysto. deedna aynu uga daadegno haddana heer degmo oo degmo walba ay samaysato habka naqshadaynta qaybsan ee la yidhaahdo district spatial plan inay samaysato. waxaa noo caddaatay in tusaale ahaan qofku marka uu doonayo inuu beer qorshaysto uu rabo beertaasi loo qorsheeyo isagu awoodda ugu badan leeyahay inta laga jarayo dan guud isagu go'aaminayo inta tusaale ahaan waddooyinka laga jaraya inta ay leeyihiin. haddaba wasaaradda howlaha guud iyada oo fulinaysa sharciga iyo mandate-ka ay hadda ay leedahay ee ku saabsan dhulka waxa ay samaysay habraacyo kala duwan iyo nidaamyadaas oo ay ku tababarayso injineeradan hadhow markay ku noqdaan qaabkii ay u qorsheyn lahaayeen magaalooyinka ay u qorsheyn lahaayeen. in waxa aad ka faa'iidaysateen marka aad ku noqotaan deegaanadii aad ka timaadeen iyo degmooyinkii aad ka timaadeen inaydun gaadhsiisaan oo aad ku daydaan inaad fulisaan habraacyadan iyo hagayaasha ay samaysay wasaaradda howlaha guud.